بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه وبعد. halkani waa dugsiyada البحرين. waxaynu maanta bilaabi doonaa inagoo soo koobi doona sharaxa aynu darsiga ku samaynayno oo aada uga duwanaan doona sidii oo aynu galaas fadhino xilliga iyo maqaamka oo inagu yar darteed maadadii afka Soomaaliga galaaska aydka ayaynu ka bilaabay biidni illaahi tacaala. waxaanu ka sii qaadanaa halkii casharadeennu ay ku taagnaayeen dhismaha afka ayaynu ka bilaabay oo casharkeennu maanta koobaad uu noqon doonaa oo macnihiisu yahay naxwaha. qaybaha magacu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood: magac guud iyo magac gaar ayaa loo qaybiyaa. buugga la soo baxa ardaye dhismaha afkana oo naxwaha ah waa cutubka 6 ayuu ka bilaabmanayaa. marka hore aan qeexno magacu waa maxay intaynaan qaybihiisa u degin. magacu waa erey kasta oo yeedhmo qofeed ama goobeed dhereed ah. wuxuu leeyahay magac waxaa la yidhaahdaa waa erey kasta oo loogu yeedho qof ama goob meel loogu yeedho oo loo bixiyo meel ama qof loo bixiyo ama geed loo bixiyo baa magac la yidhaahdaa. magaca guud iyo magac gaar baynu u kala saarnay. magac guud waa magaca loo siman yahay. magaca loo siman yahay baa magac guud la yidhaahdaa. magaca loo siman yahay in la kala lahayn ayaa magac guud la yidhaahdaa. iminka dhirta oo kale geedka quraca la yidhaahdaa. quraca Hargeysa ku yaala, ka Berbere ku yaala, ka meel kale ku yaala waa quracun, waa loo siman yahay. maxamed intaasoo qof baa loo bixiyaa, waa loo siman yahay. magac gaar buuggeenu halkaa ardayee muu faahfaahin. magac gaar inbuu kaga tegey. magaca gaar waxa weeyaan magac aan loo sinayn, sida Hargeysa, Burco iyo wixii la mid ah. waa magac gaarahoo Hargeysun baa dee la yidhaahdaa, Burcona dee Burcun baa la yidhaahdaa, Berberna Berberaa la yidhaahdaa. waa magac gaarahoo iyadaa iska leh. dhowr goobood oo Hargeysa la yidhaahdaa ma jiraan. qaybaha magaca guud baa sii kala baxaa. magac muuqda iyo magac qarsoon ayuu usii kala baxaa. magaca muuqda waa magaca la arki karo ama la taaban karo, sida dacawo, kursi, qalin iyo wixii la mid ah. waa magac guud oo dacawo dee dacwooyin badan baa u siman. waana magac muuqda. magaca muuqdana waxaynu nidhi shuruuddiisa ama dawaabidiisa waxaa ka mid a in lana arki karo lana taaban karo, sida dacawo, kursi, qalin iyo wixii la mid ah. magaca qarsoon ama magaca dahsooni waxa weeyaan waa magaca aan la arki karin lana taaban karin, sida xoogga qofku hebel xoog buu leeyahay
xoog meel yaallo oo la taaban karo ama la arki karo muuqaal leh dee ma jiro. run, been, geesinimo iyo wixii la mid a dhammaan kuwaasna waxaa la yidhahdaa magacyada qarsoon baa la yidhaahdaa. darsigeenna wuxuu noqon doonaa kale aynu maanta qaadanayno isla fadhigeennan magacuyaalka. magacuyaalku waa erey gala jagada magaca ayaa magacuyaal la yidhahdaa. erey gala oo dega bartii magac degilaa oo buuxiya ayaa la yidhaahdaa magacuyaal. sida aniga, annaga, isaga, innaga iyo wixii la mid a. waxaanu u kala baxaa guud ahaan magacuyaalku bimacnaa sidan u kala baxuu noqonayaa. magacuyaal dad, magacuyaal lahaansho, magacuyaal tusmo, magacuyaal su-aaleed, magacuyaal noqod, intaas u kala baxaa. magacuyaalkii baynu qaybinayo waxaanu nidhi wuxuu noqonayaa magacuyaal dad oo bini aadam loo isticmaalo, lahaansho wax adigu aada leeday magacuyaal loo isticmaalo, tusmo iyo waxaad cid tusayso, su-aal, noqod, dhammaan faahfaahin baynu ka bixin doonaaye ayaa loo isticmaalaa. magacuyaalku intaas oo qaybood buu noqdaa. buuggana aada u akhriya. tusaaleyowga iyo laylisyaduna waa wax idinka idinku maqan maqaamka oo inagu yar darteed waan idinka tegayaa. wixii su-aalana waan iskugu soo noqon doonaa insha allahu tacaala. fadhigeennan waxaan kaleynu ku qaadan doonaa qaybaha falka. falku wuxuu u qaybsamaa 3 qaybooduun. waa ficilkii uun markaynu xaggii luuqadda carabiga ula kacno. fal jooga, fal tegay iyo fal soo socda. tusaale ahaan mid walba tusaalihiisa. cabdi waxa uu cunayaa qadadii. cabdi wuxuu cunayaa qadadii. waa fal jooga. ciyaarayaa, ooyayaa, qorayaa, dhammaan waa fal jooga weeyaan. cali wuu tegay shalay. waa waxa weeyaan falalka aan midabka aan mariyey oo dhan weeyaan falalkaynu ka hadlana. kaas fal jooga ayuu ahaa hore. kana waa fal tegay. cali wuu tegay shalay. way duushay, dhacday, seexday, dhammaan kuwaas oo dhammina waxa weeyaan fal tegay weeyaan. cumar wuu iman doonaa berri. waa fal soo socda. safri doonaa, tegi doonaa, noqon doonaa, dhammaan ereyadaasuna waxa weeyaan iyaguna waa falal soo socda oo iman doona haddii alla yidhaahdo. waxaana xagga dambe ka raaca yacni falka soo socda oon lagu garan waayin doonaa, doontaa. aan lakaa ku noqdo hadda. wuxuu li cumar wuu iman doonaa berri. cumar wuu safri doonaa. wakaa. cabdi wuu tegi doonaa. wuu soo noqon doonaa. doonaa iyo doontaa labiyo dhadig intaaba xagga dambe waxaa ka raacaya labadaasaa ka raacaya doonaa iyo doontaa. darsigeenu halkaa maanta ayaynu ku joojin doonaa. fadhiga xigana waxaanu ka bilaabay biidni illaahi tacaala falkaabka.